madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulan xasaasi ah la yeeshay saraakiil sarsare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Turkiga waxaana si toos ah ula wadaagay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya isdiidooyinka saameeya arrimaha doorashooyinka iyo muddaxileedkii Xasan Sheekh Maxamuud ee dhamaaday iyadoo si sharci darro ah u jooga villa Soomaaliya madaxweyne Farmaajo ayaa dowladda Turkiga hordhigay sida ay shacabka Soomaaliyeed iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka shakiga uga muujiyeen wada shaqaynta ilaa iyo hadda u dhaxaysa dowladda Turkiga iyo villa Soomaaliya waxaana madaxweyne Farmaajo uu sheegay in shacabka Soomaaliyeed inta badan ay rumaysan yihiin in dowladda Turkigu ay tahay walaal iyo saaxiib dadka Soomaaliyeed garab istaagay xil adag sidoo kalena aan ku milmin isdiidooyinka iyo ishaysiga arrimaha gudaha ee siyaasadda si ka duwan wadamada Carabta madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaana si toos ah u hordhigay dowladda Turkiga in loo baahan yahay xilligan adag ee kala guurka lagu jiro inay dhexdhexaad ka noqdaan arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya isla markaana ay kaliya ka shaqeeyaan sidii ay u wada hadalsiin lahaayeen dhinacyada Soomaalida ee ishaya iyo in sharciga iyo dastuurka heshiiska lagu ahaa si toos ah loogu socdo lana gaaray xilligii doorashada madaxweyne Farmaajo waxa uu sheegay in waxa kaliya ee xilligan dowladaha taageera Soomaaliya si gaar ah kuwa shacabka Soomaaliyeed jecel yihiin oo dowladda Turkidu ay ugu horeyso u banaanay tahay inay isku soo jiidaan dhinacyada isla markaana kooxda villa Soomaaliya sida sharci darrada hadda ku fadhiday Xasan Sheekh Maxamuud Culusow uu hogaaminayo si rasmi ah loo hordhigo in la gaaray xilligii doorashada ayna wajahaan waqtiga kala guurka iyagoo ka toosaya riya maalmeedka ay ku jiraan saraakiishan ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Turkiga ayaa si toos ah ula wadaagay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Farmaajo in dowladda Turkigu aysan marnaba diyaar u ahayn inay ku garab istaagto Xasan Sheekh Maxamuud inuu ku tunto shuruucdii heshiiska lagu ahaa iyo dastuurkii dadka Soomaaliyeed ay ku wada socdeen balse taas beddelkeeda waxay sheegeen inay hadda ka shaqaynayaan sida ay isugu soo dhaweyn lahaayeen dowladda iyo mucaaradka waxaana si rasmi ah saraakiishan ay bannaanka u soo dhigeen in safaaradoodu ay Xasan Sheekh Maxamuud Culusow la wadaagtay in muddaxileedkiisii sharciga ahaa u dhamaaday isla markaana hadda uu yahay kusimaha madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya sidaas awgeedna lama huraan ay tahay in la gaaro heshiis iyo sidoo kale wada hadal dhaba oo u dhaxeeya isaga iyo mucaaradka taasoo ah go'aanka rasmiga ah ee xilligan laga rabo dowladda Turkiga saraakiishan waxay madaxweyne Farmaajo la wadaageen in iida kadib ay si toos ah u bilaabi doonaan wada hadallo ka dhici doona Muqdisho iyo sidoo kale Ankara oo si rasmi ah loogu daaqaadi doono qorshaha Turkiga ee Soomaaliya sidoo kalena loogu qasbi doono dhinacyada dowladda iyo mucaaradka inay wada fariistaan kana heshiiyaan nooca doorasho ee dalka iyo sidoo kale xilliga rasmiga ah ee ay dhacayso taasoo muujinaysa sida ay dowladda Turkigu markan uga baxday garabka Xasan Sheekh Maxamuud oo markii hore sheeganayay in siyaabo kala duwan ay u garab istaagayso Xasan Sheekh Maxamuud Culusow ayaa tan iyo markii Turkigu garabkiisa ka baxay waxa uu wajahayaa culaysyo iyo cabsi xoog leh waxa hadda uu ka baqayaa guryaha ka agdhow villa Soomaaliya xalay waxaa loo daatay xaafadaha inta badan fanaaniintu ay degan yihiin ee aagga tiyaatarka oo kulaalaya madaxtooyada waxaa la soo warinayaa in ciidamadii ka tirsanaa kuwa ilaalada madaxtooyada ee xaafadaha galay qaybtooda ay kala baxeen moobiladii iyo sidoo kale dahabkii gabdhaha iyo xaasaska sida ay sheegeen mucaaradka Soomaaliya oo maanta shir jaraa'id qabtay taasoo mar kale muujinaysa sida xaaladda Xasan Sheekh iyo kooxdiisu ay u sii adkaanayso villa Soomaaliyana dhanka sharci darrada ay ugu sii jihaysanayso mucaaradku waxay sheegeen in la beegsanayo dadka rayidka oo xitaa fanaaniintii Xasan Sheekh amaani jiray ay ka mid yihiin taasoo muujinaysa cabsida gaarka ah ee soo food saartay Xasan Sheekh iyadoo la sheegay in waqti badan uu gelinayo hadda sidii ammaanka villa Soomaaliya loo sugi lahaa maadaama uu ka baqayo in loogu soo daato